daawade sawiro adiga oo maanta oo dhan shaqo ku maqnaa kadibna markaad habeenkii gurigaaga ku soo noqotid adiga oo daalan oo doonaya inaad hurdo fiican seexatid intaanad mar kale shaqada bilaabin subaxda xigta markaad dhinaca dhulka dhigtid uun aad maqashid qof daaqada gurigaaga garaacaya oo daaqada albaabka iyo saqafka guriga la dhacaya dhagaxaan ul laag iyo wixii la mid ah si uu kaaga cabsiyo oo hurdada kaaga waagto kadibna markaad u baxdid aad weydo ama uu kaa cararo markaad ka soo noqotid eed istiraadid wuu tagay iska seexana oo halkii ka bilaabo kadibna ay qorraxdu cadaato adiga oo xalay oo leyl dagaal ku jiray oo aan saacadna ka seexan sidaana aad ku shaqo tagtid adiga oo daal iyo rafaad kaa muuqdo haddaba nolosha sidaas waxaa ku nool dadka degan deegaanada Nigeria, Limuru, Biru, Buai iyo Thika ee dalka Kenya kuwaasi oo ay hurdada uga waagteen dad isugu yeedha habeen ordayaasha oo shaqadoodu tahay inay ku ciyaaraan dadka seexday Uru kermar Kenya, Uru ile kiongozi, Uru kermar Kenya, Uru tano tena. Uru amefungua ametoa fuck you. Sisi hapa Homa Bay County dadkan oo ah qaybo kamid ah bulshada caadiga ayaa marka ay dadku seexdaan intay dharka la baxaan oo ay isku soo qariyaan caleemaha dhirta kadibna bilaaba inay dadka guryaha ku garaacaan qofkii arkaan isaga oo meel mugdi ah marayana ka naxiya iyagoo ku soo boodaya sida ay ku warantay jaridda Business Today dadka isugu yeedha habeen ordayaasha ayaa ah dad habeenkii isqaawiya oo carara dhirta dhexdeeda kuwaasi oo iyaga oo isqalqaloocinaya oo mararka qaar qoobka ciyaar sameynaya isla markaana la ciyaaraya xayawaanada habeenkii soo baxa ku wareega guryaha ay dadku degan yihiin iyaga oo sameynaya wax kasta oo ay dadka kaga cabsiin karaan qof kasta oo bulshadan ka mid ah ayaa nafisin ama naftiisu aanay degayn ilaa uu habeenkii 2 saacadood ilaa 4 saacadood oo ka mid ah uu isqaawiyo oo uu cararo isla markaana uu dadka hurdada uga waagto lama yaqaano waxa saxda ah ee ku kalifay inay sidan u dhaqmaan dadka qaar ayaana aaminsan inay raaxaamo leeyihiin Even here where we are sitting, you are the president. Yes. I should respect you as the president. As the president. Okay. Jack Sogo oo isku magacaabay madaxweynaha habeen ordayaasha ayaa Business Today u sheegay in habeen orodku uu yahay wax xagga Ilaahay ay ka heleen isla markaana ay tahay hiba ay dadka dheer yihiin wuxuuna yiri haddii aad habeen orodka bilowdo aad ayay u adag tahay inaad joojiso oo balwad ayay ka noqonaysaa Jack ayaa cararayay muddo 17 sano ah oo uu ku hawlanaa inuu dadka seexday hurdada ka kiciyo oo uu ku ciyaaro xaafadaha shiido isla markaana habeenkii intuu dharka la baxo uu dhex cararo dirta dhexdeeda Trevor Omondi oo ka mid ah dadka khaatiga ka taagan habeen ordayaasha ayaa Business Today u sheegay in habeenkii habeen ordayaashu ay daaqada gurigiisa soo istaagaan iyagoo sameynaya codad cabsi leh kadibna markuu leedhka shido intay xoog u qoslaan ay cararaan haddana markuu leedhka damiyo ay soo laabtaan maaha hawl sahlan inaad habeenkii orodo waxaanad la kulmi kartaa khataro iyo dhibaatooyin sida uu Sogo oo aynu ku soo sheegnay inuu yahay madaxweynaha habeen ordayaashu uu u sheegay BBC Africa Eye waxa uu sheegay inay suuragal tahay inay ku garaacaan waardiyaasha xaafadaha ilaaliya ama booliisku ay xabad kugu ridaan inkastoo uu sheegay in ilaa ay hadda kooxdiisu khatar caynkaas oo badan aanay la kulmin inkasta oo berigii hore ay habeen ordayaashu isqarin jireen imika waxa muuqata in arrintaasi ay isbedeshay oo intay isku yimaadeen
ayay samaysteen urur la yidhaahdo Kenyan Night Runners Association, ururka habeen ordayaasha ee Kenya. isla markaana baarlamaanka dalka Kenya ayay u gudbiyeen codsi ah inuu baarlamaanku aqoonsado ururkooda, isla markaana orodka ay habeenkii sameeyaan loo aqoonsado qayb ka mid ah ciyaaraha dalka Kenya. Sooga ayaa sheegay in ururkiisa ay ka tirsan yihiin ilaa 2,800,000 oo habeen orde, kuwaasoo ku kala filiqsan guud ahaan dalka Kenya. waxaanu sheegay in magaalada Nairobi oo kaliya ay ku nool yihiin ilaa 1,300 oo habeen orde. waxaanu sheegay in 700 oo ka mid ah ay habeenkii cararaan, halka 600 ee soo hadhay ay yihiin qaar gaboobay iyo qaar degan xaafadaha leyrka ee magaalada, kuwaas oo ka baqanaya inay dadku waxyeeleeyaan. waxaa la sheegaa in habeen orodka la kala dhaxlo, oo tusaale ahaan haddii uu aabbaha ordi jiray ay suuragal tahay adiguna inaad bilowdid. sidoo kale waxaa la sheegaa in la kala qaado habeen orodka, oo haddii aad raadid qof habeen ordaa waxaa laga yaabaa adiguna inaad habeenkaa kadib bilowdid. sida ay u sheegtay gabadh ka mid ah bulshadani BBC Africa, waxay tidhi, waxaan guursaday nin habeen ordaa anigoon ogeyn, kadibna waxaan isku dayay bal inaan ogaado halka uu ninkaygu taga habeenkii. intaa kadibna markaan arkay isagoo intuu dharkii la baxay dadka ka nixinaya oo dadka hurdada ka kicinaya, aniguna gooraan bilaabayba iskaran maayo, waxaan arkay aniguna hawshayda dhankayga ka galay.